kadib markii uu madaxweynaha muddadu ka dhamaatay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wejigabax kala kulmay awood sheegasho uu isku dayay habeenkii Sabtida waxay ilaa hadda kooxdiisu curisay 3 sheeko oo lagu ijaabeynayay ra'iisul wasaare Roble iyadoo sidoo kale mid kamid ah sheekooyinkaasi lagu lifaaqay musharax kamid ah siyaasiyiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya saddexdaasi kiis mid kamid ah durba waa dhicisoobay waana mid ka badda kooxda Farmaajo waxay lacag ku bixisay inay ra'iisul wasaaraha ka faafiyaan inuu dawladda Kenya heshiis kala galayo arrinta badda laakiin Roble ayaa qoraal uu shalay soo saaray wuxuu ku xusay in dacwadda badda ee labada wadan ay taala maxkamadda cadaaladda adduunka halkaasna loo dhaafi doono go'aanka kiiskaas oo la sugi doono natiijada maxkamadda taas halka ay uga dhimatay howlwadannada xafiiska madaxweynaha dadka Soomaalidu waxay hadda u muuqdaan inay faham badan ka haystaan inaan xilligan lagu ololeyn karin dacwadda badda mar kale shaqaalaha filla Soomaaliya iyo siyaasiyiinta Farmaajo ku dhowdhow waxay xalay suuqa soo galiyeen in arrinta Roble iyo Kenya inay tahay mashruuc uu ka faa'iidayo oo uu dalaal ka yahay musharax Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ka mid ah siyaasiyiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya kaas oo ay sheegeen inay dawladda Kenya siinayso $10 milyan waxay u muuqatay mala awaalkii sanadka degdeg ayuu hadalkani u qaboobay kadib markii sida muuqata uu maangala noqon waayay dadkii loogu talagalay inay sii ballaariyaan sheekada oo ay qaybiyaan Farmaajo iyo kooxdiisu waxay sawiranayaan in haddii ay isdhex galaan Guuleed iyo Roble in natiijada doorashadu ay dhankaasi u leeci doonto waana sababta ay u abuureen xirmadan shaqayn weysay waxay kaloo balfinayaan inuu Roble ballantii uga baxay Farmaajo oo uu rabo inuu madaxweynaha Soomaaliya u tartamo isagoo gacan dhaqaale ka helaya dawladda Kenya haddii ay tani jirto kama duwana lacagii uu Farmaajo ka helay dawladda Qatar ee uu madaxweynaha kaga noqday Soomaaliya ama mid uu hadda ka sugayo si uu mar labaad u qaato xukunka dalka shaqaalaha xafiiska madaxweynaha muddadu ka dhamaatay waxay u muuqdaan kuwa ku jahwareeray sida ay u dhigayaan dagaalka warbaahineed ee ka dhanka ah ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxaana muuqata inay meel dhexe ku naf baxeen dhammaan fikradihii ay abuureen oo ay rabeen inay dadku aaminaan si Roble loogu arko inuu u shaqaynayo dal kale ama uu ka shaqaynayo dantiisa gaarka ah Farmaajona loogu arkay inuu yahay wadani u taagan danta Soomaaliyeed sida laga wada dharagsan yahay Farmaajo wuxuu waqti dheer ahaa siyaasiga Soomaaliga ah ee ugu adeegsiga badan warbaahinta kaasoo aaminsan inuu qof walba saxaafad ahaan u dumiyo una sumcad dilo laakiin waayadan dambe waxaa muuqata inay fikradihiisi dhaafi la yihiin shaqaalihiisa sababtuna waa ballamadii hore uu fulin waayay waxyaabo badan oo ay sheegeen kooxdiisa oo run noqon waayay iyo wacyiga dadka Soomaalida oo si weyn isu bedelay maxay kula taadiga